madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa galabta dib ugu soo laabtay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa kadib socdaal qaatay muddo 7 maalmood ah uu madaxweynuhu ku mareeyay qaar ka mid ah gobolada galbeedka iyo qaar ka mid ah gobolada bariga halkaasi uu madaxweynuhu kaga qayb galayay qalin jebinta jaamacadaha kala duwan ee gobolada Awdal Gabiley iyo Togdheer oo ay ka qalin jebinayeen arday aad u tiro badan kuwaasi oo dadaal aqooneed soo geliyay muddadii ay wax baranayeen madaxweynuhu isagoo la wadaagaya dareenkooda isla markaana la qaybsanaya farxadda maalintan ay ku qalin jebinayaan ayuu kaga qayb galay 3 jaamacadood oo ka mid ah goboladaasi waftiga madaxweynuhu waxa kale oo ay u kuur galeen isla markaana kormeerayeen mashaariicda horumarineed ee ka soconaya goboladaasi sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu xariga ka jaray qaar ka mid ah mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay gobolada qaarkood madaxweynaha waftigiisu waxay habeenkii xalay ku hoydeen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil tan iyo intii uu madaxweynuhu safarkan ku jirayna waxa si diiran u soo dhaweynayay shacabkii dadweynaha kala duwan ee goboladaasi kuwaas oo ku qaabilayay shucuub ay ka muuqato dareen wadaninimo iyo farxadda iyo reereynta ay u qabaan madaxdooda iyo madaxweynahoodaba waxaan si aad iyo aad u mugiyo miisaan weyn aan ugu mahad celinaynaa guud ahaan shacabka kala duwan ee gobolada Awdal Gabiley Togdheer iyo Saaxil maamulada gobolada iyo degmooyinka sidii diiraneed ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha